kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena maantana waxaa ka mid ah dani oo la kulmay safiirka UK isagoo kula kulmay magaalada Boosaaso xiisad xoogan oo ka taagan laascanood kadib go'aan ay qaadatay dowladda Firdhiyo uu hogaamiyo dhaqaale xumi ka taagan Puntland taasi oo sare u sii kacaysa iyo dadka reer Puntland oo aad uga cabanaya oona alaf oo si adag u hortimid qorshe cusub oo Abiy Ahmed uu ka doonayay inuu ka hirgeliyo gobolka Soomaalida qorshihii ugu weynaa ee mucaaradka Soomaaliya oo dhicisoobay hooyo iyo 3 gabar ah oo si arxan darro ah loogu dilay gobolka Mudug ee Soomaaliya taasi oo ah ana qabiil qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan ee ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan aynu ku bilaabana daawadayaal madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu qaabilay safiirka Soomaaliya u fadhiya UK madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qaabilay safiirkaasi oo lagu magacaabo Charles King iyo wafdi uu hogaaminayo kulanka oo ay ka qayb galayeen xubno ka socda golaha xukuumadda waxaa looga hadlayay xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga siyaasadda iyo horumarinta arrimaha Puntland waxaana si gaar ah looga hadlay howlgalka ciribtirka argagixisada Daacish ee ka socda buuraha Calmiskaad iyo xasilinta deegaanada laga saaray kooxaha argagixisada ah wafdiga oo ka socday dowladda Ingiriiska ayaa kulan duceed la qaatay xubno ka mid ah golaha xukuumadda saraakiisha amniga iyo la taliyayaasha madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxaana halkaasi ku soo gabagaboobay kulankaasi barfiisa Facebook ayaa safiirka Soomaaliya u fadhiya wadanka Ingiriiska soo dhigay qoraal uu ku sheegayo in ay muhiim tahay in laga wada hadlo amniga iyo xaaladda guud ee dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland oo ciidamadoodu ay la dagaalamayaan sida uu sheegay kooxaha argagixisada markana xiisad qas ah ayaa waxa ay ka taagan tahay maamulka cusub ee waqooyi bari Soomaaliya maamulkan curdunka ah magaaladiisa Laascanood ee xarunta u ah waqooyi bari ayaa cabasho xoogan ka muujiyay saameynta ka dhalatay go'aankii madaxweynaha maamulka uu ku soo rogay shirkadaha isgaarsiinta shacabka ayaa waxa ay ka cawdeen xirnaanshaha shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada ee magaaladaasi oo 2 toddobaad ku dhow aan shaqaynaynin kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay iyaga iyo maamulka waqooyi bari dadweyne careysan ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Laascanood waxayna sheegeen in arrintaasi ay si weyn saameyn ugu yeelatay suuqii iyo dhaqdhaqaaqii maaliyadeed ee gudaha magaalada dadka qaar ayaa sheegaya in lacagihii bangiyada ugu jiray ay ugu xiran yihiin isla markaana ay kala bixi la'yihiin waxa ay sheegeen in haatan kaliya ay isticmaalayaan lacagaha taleefanada sida saad sahal iyo e-dahab iyadoo arrintaasi ay sabab u tahay maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya dadka ayaa maamulka waxa ay ku dhaliileen inuu tallaabo qaldan qaaday halkii uu ka shaqayn lahaa horumarinta iyo deegaanka inuu kor u qaado ay sheegeen in tallaabo xun oo saameyn ku yeelatay qaaday maamulka waqooyi bari ayaa shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada ka dalbaday inay bixiyaan lacag canshuur oo lagu taageerayo maamulkaasi waxaana ka dhaga adeegay bangiyada iyo isgaarsiinta taasi oo keentay in la xiro wasaaradda kalluumaysiga ee maamulka Puntland ayaa maanta shaaca ka qaaday in shaqadii badda iyo kalluumaysiga ee wasaaraddaasi ay dhibaato weyn ka taagan tahay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga ninka lagu magacaabo Maxamed Balaag oo eedeymo u jeediyay wasaaradda maaliyadda ayaa waxa uu sheegay in shatiyo sharci darro ah ay bixinayso wasaaraddaasi agaasimo Balaag ayaa xusay in arrintani ay hor istaagayso dakhliga dowladda soo galiyay isla markaana ay wajahayso dakhli yari kadib eedeynta wasaaradda kalluumaysiga mas'uuliyiinta